waxaana wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha ee Kenya wararka caalamkana Venezuela madaxweyne Maduro waxa uu ku dhawaaqay qabashada doorashooyin baarlamaani oo waqtigooda laga soo qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan waxaana idin soo jeedinaya warkaaniga Khadar Cabdilaahiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay ku-xigeenka agaasimaha fulinta sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha ee FINIAP Derecho Wardofa oo booqasho shaqo ku jooga dalka kulanka dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo mas'uulkaasi sare ee ka tirsan hay'adda FINIAP waxa uu joogay wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xumad Xasan wakiilka FINIAP ee Djibouti Caashe Ibrahim kulankaasi waxa kaga wada hadleen xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya Djibouti iyo hay'adda FINIAP oo ka shaqeysa horumarinta bulshada waxa isla soo qaadeen mashaariic ay ka mid yihiin siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan horumarinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha oo mas'uulkaasi sare ee ka tirsan FINIAP uu ku hambaliyay xukuumadda Djibouti midhaha ka dhashay siyaasadda ku aadan taabagelinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha kulankaasina waxa ka qayb galay xogayaha guud ee madaxtooyada mudane Maxamed Cabdilaahi Wacays waraysi aan la yeelanay mas'uulkaasi waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay qorsheyn si xal waara looga gaaro horumarka bulshada taas FINIAP Djibouti way ku taageeraysaa buu yidhi sidii loo xoojin lahaa ayuu yidhi isku dubaridka wax waliba oo taageeraya qorsheyn ku aadan horumar ku habboon bulshada ku-xigeenka agaasima fulinta sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha FINIAP waxa uu ugu horeyn uu mahadnaq ballaaran ugu jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo uu yidhi muujiyay sida ay uga go'an tahay xaqiijinta qorsheyaha ku aadan horumarinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumina Xumad Xasan oo iyaduna sidoo kale halkaasi aynu ku wareysanay waxa hadaladeedii kamid ah Le directeur adjoint a dû d'abord s'entretenir avec les responsables. Waxa maanta boqosho 24 saac inoogu yimid ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee FINIAP oo ugu horeyntii waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta dalka haddii ay noqoto wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda gudoomiye ku-xigeenka INFD iyo sidoo kale aniga si uu inoo soo indheeyo wada shaqaynta kala dhaxaysa FINIAP iyo Jamhuuriyadda Djibouti aad ayaan ugu faraxsanahay ayaa uu yiri ku-xigeenku balse waxana uu bogay wax qabadka hufan ee Jamhuuriyadda Djibouti waxana uu yimid Djibouti si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uguna hambalyeeyay wax qabadka iyo dadaalada hufan ee uu hirgeliyay madaxweynuhu kulankanina waxa uu xoojinayaa xiriirka kala dhaxeeya labada dhinac ee FINIAP iyo Jamhuuriyadda Djibouti iyo sidii loo hirgelin lahaa barnaamijyada u qoondaysan xukuumadda aad buu mahadsantahay Faadimo Saalax oo warkaasi soo jeedinaysay qodobkaas haddii halka kaga imano madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa toddobaadkii hore kulan wada tashi la yeeshay axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka iyo muxaafadka leh ee dalka kulanka ayaa ku soo beegmaya xilli loogu dabaaldegayo sanad guuraha afartanaad ee curadka xisbiyada dalka RBB iyo 25 sano guurada heshiiska nabadda ee abca golaha raadiyoga iyo telefishinka Djibouti waxa uu barnaamijku ku soo marti qaaday amuurtaasi lagu falanqeynayo mas'uuliyiinta kala duwan ee loogu talagalay in ay ka qayb galaan ee hoggaanka u haya xisbiyadaasi siyaasadeed barnaamijka oo taxana waxa shalay marti ku ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka IDG Marweyle Ismaaciil Geedi Xareed oo ka warantay aragtida uga baxday kulankaasi waxa hadaladeedii soo egtay wariye Faadimo Saalax go'aantii waxaan hambalyeeynayaa hindisaha madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ah tii u horeysay ee noocaniya waana mid xoojinaysa dimuqraadiyadda dalkeena midnimada qaranka iyo isdhexgalka bulshada dalka ayaa u baahan waayo waxa si aad loo sugayaaba waa wada tashi dhammaan xisbiyada siyaasadeed haddii ay noqoto mucaaradka iyo muxaafadka waa in aan ku midowno dhammaanteenba danta guud ee qaranka wadagsoontiin haddii aanu nahay madaxda xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka waxaan in badanba sugaynay goorma ayuu kulankani u qabsoomi doonaa waxa uu ku soo beegmay xilli xaaladda degmada ay cakiranta oo Djibouti oo kaliya ay tahay dal nabada sidaas awgeed kulankanina waxa uu dhibaha u adkeynaya xoojinta ammaanka iyo nabadda degmada ee dalkeena kulankani waxa uu ka marag furayaa sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu u daneeyo dimuqraadiyadda iyo wada xaajoodka midnimada qaranka ayaa iyadoo ah shay muhiim oo ku dhisan wax qabad loo dhan yahay midnimada ayaa u baahan in la xoojiyo lana adkeeyo waayo
haddii aan nahay xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno xukuumadda si loo xoojiyo isdhexgalka qaranka iyo deganaanshaha. waxa uu madaxweynuhu sheegay in isdhexgalka bulshada ay tahay shay muhiim ah. waad ogsoontihiin in muhiim ay tahay in la tirtiro kala sarreynta bulshada. waxaa la meelmariyay dib u habeyn siyaasadeed oo xag bulsho, balse dhankeenna waxaan leenahay in aan samayno siyaasad bulsho oo ku howlan cadaaladda bulshada si loogu qaybiyo qaninimada. kulanka aan la yeelanay kulanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan madaxda xisbiyada siyaasadeed ay yeesheen ayaa isagoo ahaa kulan uu la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda shacabkiisa. barnaamijkaasi lamida sidoo kale waxaa golaha raadiyoga iyo telefishinka Jabuuti uu ka qabtay xogayaha guud ee xisbiga RBB mudane Ilyas Muuse Dawaale oo ka waramay ahmiyadda wadatashiga madaxweynaha jamhuuriyadda iskugu yeedhay dhammaan xisbiyada dalka ka duwan gashan ee mucaarad iyo muxaafid bale. waxaana hadaladiisii kamid ah arinta aad sheegayso ee madaxweynuhu uu la kulmay xisbiyaasha jamhuuriyadda Jabuuti ka jira haddii ay noqdaan kuwii UMP-ga amba aqlabiyadda madaxtooyada iyo haddii ay noqoto inta mucaaradkaba oo iyakuna matila baarlamaanka ay ku jiraan qayb iyaka ka mid waa arin horta kow nagu ah xilliga aad u fiiriso Jabuuti. waana arin uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu sharafta ku muto, waxaana keentay maahin wax jadiida runtii xilliga aad u eegto inta dawladda madax ka aanba malaha haya iyo lase intii ka soo horjeeday wadatashiyaal qaarkood ay yeeshaan malaha hab unba jadiid habkan uu maanta madaxweynuhu dhigay unba jadiide annakoo dagaallo sokeeye soo galnay, annakoo dhibaatooyin badan ay nagu dhaceen Jabuuti ahaan yaan sheegay sagaashanadii. waxaan ognahay inaa haddana madaxweynaha oo berigaasi aan ognahay kaalinta uu ka soo ciyaaray isku geyntii iyo lese walaaltinimadan iyo lese isku xidhki nabadda la xidhayay inay berigaaba ay jirtay. xilligaas tani waxay kaga gedisan tahay habkii kale. waxa weeye xisbiyaal waxaan xilligaasi UMP un kuma koobnayne xisbiyaal mucaaradka ayaa iyakuna jiray. waa waqti nabadeed, waa waqti horumar, waa waqti aan isleenahay jamhuuriyadda Jabuuti meel bay joogtaa, meel bay ku socotaa. madaxweynuhuna yool ahaan xilliga aad u eegto uu qabo waxa uu rabo meesha uu gaarsiiyo iyo lase dalkani fursadaha noo yaalla iyo dhibaatooyinka noo yaalla sidii aan uga bixi lahayn inaan la isweydiini karo. og inaan laakiin madaxweynaha aqlabiyad weyn laku siiyey imaatimkiisa iyo madaxtinimadiisa, haddana madaxweynuhu wuxuu gartay inuu wax la iska weydiini karo, ka wada tashani karo, la is orani karo halkee baan soconaayo maxaana hor yaalla. weliba khaasatan xilliga uu dhulku nabad yahay uu horumar aan ku jirno. taa weeyaan taa iyadu maanta jadiidka ah tu xisbiyaasha uun ku joogaysa maahine waxaan ognahay inuu madaxweynuhu bulshada intiisa kalena xubino badan oo bulshada kamida tirar badan oo bulshada kamid ah inuu wadatashigaasi uu u ballaarini doono, uu la wada sheekaysani doono. gobolka Cali Sabiixna wakaalada qaran ee dadka baahida gaar kale ee dalka oo kaashanaysa xogeynta dawladda ee arrimaha bulshada iyo wasaaradda tamarta ayaa qaban qaabisay munaasabad furaha guryo bulsho lagu guddoonsiiyey qoysas kamid ah qoysaska baahida gaar kale ee dalka. waa guryo ay u dhameystiran yihiin adeeg waliba oo ku habboon qoysaskaasi saboolka ah, waxaana kamid ah qoysas la tacaalaya ubad ama caruur ee baahi gaar leh. guryahan oo ah qoysaska hayntoodu ay hooseyso ee naafada ah waxaana ku jira weliba qoysas la daala dhacay ama gacanta ku hayay caruur baahi gaar leh. wakaalada qaran ee dadka baahida gaar kale oo ka turjumaysa siyaasadda madaxweynaha ugu talagalay horumarinta dadka baahida gaar kale waxa ay sheegtay in qorshe u mug weyn leh ay u wado dadka baahida gaar kale si looga caawiyo nolosha, waxaana tallaabadani noqonaysaa mid sii soconaysa. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ku dhawaaqay mar kale in sanadkan 2019 uu noqonayo markii labaad sanadkii guryaha,
waa waxqabad ku beegan in qof waliba oo muwaadina uu helo guri hantiya oo ku habboon guryahani cusub ee maanta la guddoonsiiyey qoysaska hayntoodu ay hooseyso ee naafada waxaa loo dhisay nidaam casriya oo ka jawaabaya baahida naafanimo waa mid ku cusub dalkeenna hase yeeshee u baahan in la sii wado munaasabadda qaybinta furayaasha guryahani waxaa u joogay agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahida gaarka leh mudane ducaale siciid maxamuud oo sheegay in dadaalkan uu sii socon doono si dhammaan bulshada baahida gaarka leh u helaan guryo bulsho oo leh adeeg ku habboon agaasimaha guud ee wakaaladdu waxa uu ku nuuxnuuxsaday in madaxweynaha jamhuuriyadda ay ka go'an tahay in taageero lixaadle la siiyo qoysaska baahida gaarka leh isagoo halkaa uga mahad celiyey dhammaan xubnaha xukuumadda gaar ahaan xogeeye dowladeedka arrimaha bulshada marwamuna cusmaan aadan iyo wasiirka tamarta qaabilsana khayraadka dabiiciga mudane yoonis cali geedi bulshada ka faa'iidaysatay guryahan ayaa RTD uga warramay dareenkooga farxadeed iyo sida ay u arkaan deeqdan ka soo gaadhay dowladooda ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala takale labaad madaxweynaha mahadsan isaguna noo soo abaabulay aqaladana galayno wasiiradda muuna arrimaha bulshada ayaa iyadna mahadsan iyo ducaale saciid utakabiga ninka madaxa يا إسقونا محسن isla munaasabadaasi waxaynu waraysi la yeelanay prefega gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe iyo agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahida gaarka leh Ducaale Saciid Maxamuud waxaana hadalka ku hormaraya prefega gobolka Cali Sabiix goobjoog ka nahay aan iskugu nimidnay munaasabad aad u muhiim ah oo lagu bixin doono guryo lagu talagalay dadka baahida gaarka leh taasi oo laga jawaabayo siyaasadda madaxweynaha oo ah in dadkaasi la garab joogsado wixii loo qaban karana loo qabto dawladdu kol kaste waxay ku jirtaa hawl ay doonayso inay dadkaasi muuqdaan oo wax la wixii qofka bini'aadanku heli karayo ay helaan waxa halkan ila jooga walaalkii Ducaale oo agenska ka aaba وددال وين وقال هالكن سدو حولهاني وهرجلين لها منا أو وزارة استاجرسي قرن ويدنا وحكي وين كجيستي تاسنا وحي تلمامسا إن هول شلو ودلني هاي وحجر بيوتها بريفيجي أو صار هالنقة يوق عنه وسيي سيدي عن قيب وجهل اللهين تذكر باهي جارك لجوريها تضبيه صدن أقل أيام ساك كورة جيني oo loo sameeyay adeega u baahnayeen dhamaantood macal solarki loo dhigay oo uga mahadnaqaya wasiirka Yoonis oo runtu sana gacan weyn yaani hawsha naga siiyay ajaasahan iyo wasiiradda Muuna Agtajuut walaasho mahadnaqan leh oo maasantahay maxaa yeelay way noo fududeysay sidii ay dhaqaalahaan hawsha u wargelin lahayd waana dadaalkii madaxweynuhu sidoo yaani dadka baahida gaar kale buulati ugu tala galay oo ah in dadka baahida gaar kale markasta la siiyo horumarinta ama يعني فوضيت مركو ولا سواء كسته waxaan leeyahay waka deeqdi maanta way soo gaadhay hiina waa la soo dhigay waxaan naga maqano hadda in loo sameeyo qasabadii yani photo biligi marka insha Allah inta kalena waa heli doontii ma leenahay baskiina oo soo socda iskoolkiina si dheer bay u tagi doonaa hadii la isla munaasabadaasi waxaynu halkaasi ku wareysanay xogeeye dawladeedka arrimaha bulshada Marwamuna Cusmaan Aadan waxaana hadaladeedii ee kamida notre présence avec le ministre de l'énergie et le ministre de la communication. kulankani maanta waxa uu ku saabsan yahay guddoonsiinta 37 qoys guryo kuwaasi oo ka soo jeeda dhamaantood qoysaska dadka baahida gaarka leh aniga waxay ii tahay farxad in aan kala qayb qaato wakaaladda dadka baahida gaarka leh guddoonsiinta guryahani waxaan la dhammaystiray bil gudahood dhammaan dayactirka guryahaasi waxaana guddoonsiintan aan si aad u jeclaystay in aan kala barbar qaato agaasimaha wakaaladda dadka baahida gaarka leh waxa farxad iyo sharaf ah ay aniga maanta ii tahay waxayna ka turjumaysaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ku aadan in la garab istaago dadka baahida gaarka leh dadaalkaasi halkaasi uun kuma joogsanay waanu ku sii aan baqaadna oo waxa aanu gaarina dhammaan dalka oo dhan Faadmo Salaxad buu mahadsantahay warkaasi la socodsiinaysay wararka kale ee dalkana waxaa kamid ah kulan aragti wadaag ee ku saabsan habkii loo qiimeyn lahaa loona wajihi lahaa dhibaatooyinka dabiiciga ayaa ka qabsoomaya dalka waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashanaysa urur goboleedka Eegaad Maxamed Cusmaan ayaa falada warkaasi noo haya aqoon isweydaarsi ku saabsan qiimeynta baahida dhibaatooyinka
ayaa waxa ay qayb ka tahay dib u soo kabashada ayaa maanta waxa uu ka furmay guriga ummadda. kulankaasi ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha oo la kaashatay IGAD iyo ururka midowga Yurub iyo Bankiga Adduunka. ujeedada ka dambeysa ayaa waxa ay tahay sidii loo sameyn lahaa koox takhasusa oo firfircoon oo ku aadan dhanka qiimeynta baahida kadib dhibaatooyinka. munaasabadda aqoon kororsigaasi ayaa waxa ay socon doontaa muddo 4 maalmood ah, waxaana lagu tababari doonaa koox khabiiro oo u dhalatay qaranka iyaga oo qiimeyn doona sida ay waxyihiin oo ku aadan qiimeynta loo baahan yahay ee hoos loogu dhigayo dhibaatooyinka. agaasime Maxamed Axmed Madar oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay fursadda aqoon kororsigan ee lagu tababarayo waaxyaha wasaaradaha ay qusayso iyo dhammaan hay'adaha qaranka, iyo weliba iyadoo loo baahan yahay in la isku duubnaado oo si wadajir loo shaqeeyo haddii ay tahay ciidamada iyo weliba kuwa ammaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. taas ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda looga baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana la iskaga kaashan lahaa si dhibaatooyinkaasi la isugu sii diyaariyo marka ay dhibaato jirto. aqoon kororsiga qiimeynta baahida dhibaatooyinka ayaa waxa uu qayb ka yahay kordhinta qorshaha shaqo ee 2017 oo quseeya maareynta dhibaatooyinka iyo wax ka qabashada isbedelka cimilada, iyada oo uu fududeeyo adduunka iyo ururada sidii wax looga qaban lahaa. maxamuud aad buu mahadsan yahay. dood wadaag ku saabsan caada dhaqameedka caafimaad darrada badda caruurta iyo hooyada ayaa xalay ka dhacday guriga ummadda. aragti wadaagan waxaa soo qaban qaabiyey macadka cilmi baarista ee madaxa bannaan ee gobolka geeska Afrika ee Erika, waxaana uu kala kaashaday dhakhaatiirta takhasuska ee dalka iyo hay'adda FINAB ee qaramada midoobay. waxa uu joogtay wasiiradda haweenka iyo qoyska Muumina Axmed Xasan. dood wadaagan waxa ay ku saabsaneyd caado dhaqameedka u daran caafimaadka haweenka iyo caruurta sida xoqa, samboorka, aslada iyo caadooyinka kale oo intaba dhakhaatiirtu ku sheegeen in caafimaad darro ay ka dhalato. aragti wadaagan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa lagu soo bandhigay caafimaad darrada laga dhaxli karo caadooyinkaasi iyo isbarbardhigga shalay iyo maanta si looga gaashaanto dhibaato caafimaad darro oo soo wajahda dadka ugu nugul bulshada ee caruurta iyo haweenka ah. waxaynu ay ka wareysanay Fawziya Xasan oo ah dhakhtar ku takhasustay xanaanada caruurta iyo Dr. Aamina Shire oo ah gudoomiyaha macadkaasi. caadooyinka inta xun ay dhibaato ciyaalka u keeni karto ayaan maanta halkan isugu imanay sidii dadkii looga wacyigelin lahaa. waa arin dhulkeena ku fara badan, laakiin nasiib darro dadkeenu waa arin laga wacyigelin. marka waxay war u hayaan waa wax ay caadaysteen oo caadi noqday baan oran karnaa. laakiin anagu haddaan dhakhtar nahay ama dadkan kale maanta nala joogay dhakhtaradan kale university-ku dhibaatada ku hayso ciyaalkaasi waanu aragnaa, xilli kasta waanu aragnaa. marka waxay noqotay waqtigii la oran lahaa waa inaan haddeed qaraar laga qaato oo la joojiyo. maanta waxaan qabanqaabinay maxaa la yiraahdaa kulankan oo ku saabsan waxa la caadaystay dhibaatada u keena dhalinyarta ama ubadkeena. kolka anagoo doonayna inaan dadka ka wacyigelino khatarta ay caadooyinka ama dhaqdhaqaaqyada ay ku hayaan ubadkeena. wasiiradda haweenka iyo qoyska ayaa soo dhaweysay qabanqaabada dood wadaagaasi ku baraarujinaysa bulshada in laga haro caadooyinkaasi xunxun ee caafimaad darrada ee ka dhalato. waxaana hadaladeedii ka mid ah wasiiradda. anigu waxaan u arkaa hindisahani inuu yahay mid wanaagsan, waayo waxaa laga hadlay in laga gudbo caadooyinkii hore sida samboorka, geed saraha iyo wixii la mid ah. kulankani oo ay iskugu yimaadeen cilmi baadhayaal dhakhaatiir ayaa si aad ah uga hadleen in la joojiyo caadooyinkan. hase yeeshee iyadoo ay xukuumaddu iyo cadaaladduba ay dadaal horle ay ugu tallaabsatay, weli waxaa jira caadooyin u baahan in la dabargooyo. shirkani ayaa isagu ah in lagu baraarujinayo bulshada ka hordega arrimaha noocan ah, waxaase loo baahan yahay in bulshada luqadooda loogu sheego. Rada Daahir oo warkaas soo jeedinaysay aad bay u mahadsan tahay. xogeynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha ayaa maanta si rasmi ah u guddoonsiisay qalab muhiim ah sideesayada ama xarumaha horumar bulsho ee dalka. waxaa agabkan loogu talagalay dhalinyarada ku xidhan sideesayada oo iskugu jira kuwa ciyaareedka iyo tababarka ay ku qaataan si loo hubiyo mar waliba in kobcinta iyo kaalingelinta dhalinyaradu kaalin weyn ay ka gasho sideesayadu. agabkaasi idil ahaantii waxaa maalgelisay hay'adda qaramada midoobay ee caruurta UNICEF. munaasabadda qaybinta agabkaasi oo ka qabsantay garoon ciyaareedka guuleed waxaa u joogay xogeyaha dhalinta xogey dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil iyo wakiilka UNICEF ee Djibouti.
agaasimaha sideesiyada ruqyo xasan ayaynu ka wareysanay. lix sideesay oo kamid ah sideesayaasha magaalada madaxda alaabtaas oo ka kooban mashina kuudra informatigi alaabtii birooga ontuka waa equipmentgii ay u baahnaa sideesaygu siduu hawshiisa ugu qayb galo siduu hawshiisa ugu fulin karo alaabtan oo aan si wanaagsan maanta uga gudoonay inisefta iyaduna de shaqada sideesayaasha aan ka qabano qayb weyn nagala qabata oo iyadu collaboratorynta ugu waaweyn kamida waxaan oran lahaa hadda waxaan kusoo gabagabeyn lahaa inay sideesayaasha responsibiladooda mas'uulada inay alaabtan loogu deeqay inay si fiican u xafidaan ay dhalintana uga faa'iideeyaan ayaan oran lahaa. xogay dowladeedka dhalintii ciyaaraha xasan maxamed kaamil ayaan sidoo kale halkaasi ku wareysanay waxaana hadaladiisii ka mid ah. D'abord pour tout le travail que vous êtes en train de faire en faveur de la jeunesse, de se tenir auprès de notre département. dhammaan hawlaha aad u qabanaysid dhalinyarada iyo isgarabtaaga aad u muujisay xogeynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha weynu kaaga mahad celinaynaa inkastoo aanay marnaba fududayn hawshani haddana waxaa maanta deeqdani ka kooban qalab aad u muhiim ah ka faa'iideysan doona 6 xarumo bulsho waxaan rajaynayaa in aad mar kale dib u cusboonaysiin doonto deeqdani maadaama ay hadheen xarumo kale oo iyaguna u baahan qalabkani annaguna waa inuu garab galaynaa si dadaalkeena aynu u mideyno si dhalintu ay u helaan qalabka ay u baahan yihiin waayo waa taliyayaasha mustaqbalka dhalintu waa ay u baahan tahay hay'adaha sida hay'adda UNICEF oo had iyo jeer garab taagan dhalinta waxaan rajaynayaa in tallaabooyin hor leh aynu qaadi doono iyada oo shaqooyin kalena ay noo hadheen dhankoodana dhalinyarada waxaa looga baahan yahay in gacmaha ay isqabsadaan oo had iyo jeer ay ku dadaalaan daryeelka wanaagsan ee qalabkani waana ku dhiirigelinayaa in ay daryeelaan qalabkan oo iyaga anfici doona. maxamed cabdiraxmaan oo warkaas soo jeedinaya aad buu u mahadsan yahay. gudoomiyaha rugta ganacsi ee Djibouti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa loo doortay hogaanka sare ee rugta ganacsi ee Afrika. doorashada gudoomiyaha oo ka dhacday Addis Ababa dalka Itoobiya waxaa si buuxda mudane Yuusuf Muuse Dawaale loogu doortay gudoomiyaha hay'adda Afrika oo qaabilsan rugaha ganacsi iyo warshadaha waxaana xilkan uu hayn doonaa muddo 2 sano ah. waxaa xilkan uu kala wareegay gudoomiyihii hore ee hay'addaasi oo u dhashay wadanka Ghana. xubnaha hay'adda ayaa dhammaantood ku hambaliyay Yuusuf Muuse Dawaale guusha uu ka gaaray doorashada oo muujinaysa galaangalka siyaasadeed iyo dhaqaale ee Djibouti ku leedahay qaaradda ee Afrika. iyadoo qayb ka ciyaaraha dugsiyada waxbarasho ee dalka wasaaradda waxbarashada ayaa qaban qaabisay tartan orodada fudfudud oo ay u qabatay ardayda dugsiyada waxbarasho ee dalka 400 oo dugsiileeya ayaa ka qayb galay orodkaasi oo iskugu jiray 5 kilomitir iyo 2 kilomitir oo loogu talagalay inay ka qayb galaan wiilasha iyo gabdhuhuba. waa tallaabo qayb ka noqonaysa dhiirigelinta dhalinyarada ku wanaagsan ciyaarahaasi orodada waxaana looga gol leeyahay in lagu soo xilo dhalinyaro ku wanaagsan orodada oo qaranka ku matala ciyaarta oo sanadlaha ciyaarahaasi oo sanadlaha waxa ay sii soconayaan ilaa bisha Abriil ee sanadkan. gabagabadii ciyaarahaasi dhalinta kaalmaha hore soo galay ayaa loo qaybiyay hadiyado kala duwan. Aye Faarax Aye waa arday wax ka barta dugsiga dhexe ee Fukuzawa waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada markii ugu horeysay ka qayb galay orodkaasi. waxa uu RTD uga warramay dareenkiisa ku aadan orodkaasi ka qayb qaadashadiisa. كيلو باردي شعورتي عادي عاد بفرحسين مقعي عيا فرحيه ولا رها ستمدي وان دغتا كولج ديفيكزا waa ka dhigta orodka markay imtixaan cabsoon waxa la argooy ba jooga waa laga badin basla hadana waxa yir ficil isgali waxa waa orod wala kala badin kara waa soo orday 3 laba rag bay goorisay labada rag waan daali waan daba orday hadana ficil baa ku galay ninkii waan ku soo dhaafay marka soo gaan xaggan soo biliga ninkii marka soo dhaafay mid bay gooray ninkii iga soo badiyay daba orday qofkii labaad baa soo baxay شعورتي ما تأدي أد بفرحسني ويا مركي قفك سد حبة صباحي إما قفك لا بصباحي إن بدل ما كنت دالي واللي بقى حكاسي على أنا بريمي صباح قف ما يقول ري غيرت أنا شوية بيفيني بكورنيا وحوا أرض ما تدق بريسين بريوا يقبل كرسين برين ما ده ديزت سمعنا بريمة صباح خير بقى فنكنا وركنا فنانك حوالا هذا أيها بنوادي خميستي جمعي عن صور عفني شو كقبتي كورنيش showgaasi waa kii labaad ee fanaanku uu qaban qaabiyo tan iyo kolkii dalka ku soo laabtay bishii December sanadkii hore 2018 بيه سيروكو كما أم بحيانه
gaarayaane karti iyo ismaqalba lagu kaalin galaayo adiguna kasmaa dumar kalmayse moode sacaaday aad baad u mahadsantahay horta in shucuurteeda waa showgii cawaale waxaan jooga cawaale lagama dhargay 4 habeen 5 habeen naguma filaba waa fanaan caalami cawaale caalam maxaan ku dhahdaaye waa fanaan Soomaali oo dhan meel kasta caalamka ka joogto waa fanaan ay ku faanto waa fanaan ay tirsato daanaguna reer Djibouti baan isku nahayba markaas sharaf aad u weyn bay tahay aad baan u soo dhaweynayaa kulli si wanaagsan baad arkaysan oo ay ni muuqda waa show barnaamij shucuurteeda leh iyo quruxdeeda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anagu fanaankuna sidoo kale aad ugu faraxsan yahay waa ma sha Allah de kulli hambaliyo uma leeyahay shicibka iyo fanaankaba waanu hambaleynayaa waayo sharafta fanaanku waa shicibkiisa shicibkuna si fiican ba u sharfeen oo qurux badan fanaankuna sidoo kale uu hagar baxay oo ku faraxsan yahay oo waad aragtaa sidoo ugu heesayo caawa asma iyo ababa intaa haddii aynu kaga imano tacsi allah u naxariistay waxaana soo gaadhay geerida Faadimo Cabdi Ibraahim oo xalay ku geeriyootay dhakhtarka Belbelo ee Sheekho marxumaddu waxay ufka kaga tagtay 5 caruura waxay haba ay u tahay farsamo yaqaan Sahal Ahmed ee Furre oo kamid ah mas'uuliyiinta golaha raadiyoga iyo telefishinka Djibouti sidaas awgeed agaasimka iyo dhammaan shaqaalaha RTD waxay tacsi tiiraan la u dirayaan qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxday marxumaddu gaar ahaan walaalkeen Sahal Ahmed ee Furre oo aynu leenahay samir iyo iimaan ilaahay akaasiyo habadaas naxariistii janno iyadana allah كورابيا إنا لله وإنا إليه راجعون ورارك عالم كهدي إنه الله حنو ذلك فنزويلا ورارك الكاس إنك سو قاري وحي شيئا كمنان مظاهرات يلا يا وضع بنابح كدن أما يقول كله هلينا يعني labada siyaasiga isku haya wadankaasi magaalada caasimada ee Caracas ayaa waxa ka muuqda banaabax balaaran oo lagu kala taageerayo madaxweyne Nicolas Maduro iyo ninka madaxweynaha sheegtay Juan Guaido waxa taageerayaashiisa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa mucaaradku ay wadaan banaabax ka dhan ah Maduro oo ay kaga dalbayaan inuu iscasilo balse Maduro ayaa dhankiisa waxa uu taageerayaashiisa u sheegay inuu yahay madaxweynaha saxda ee Venezuela hogaamiyaha mucaaradka Juan ayaa bishii la soo dhaaftay waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi waxa taageeray Mareykanka iyo dalal kale oo ku yaal Latin America Ruushka iyo Shiinuhuna waxay la safteen madaxweyne Maduro xasaradaasi siyaasadeed ayaa wadankaasi waxa ay xilligan ay u muuqataa mid ay ku dhalisay kala qaybsanaan baahsan oo ilaa imika aan xal loo helin daawadayaal qodobka ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay kulankeena kan xiga inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo